السلام عليكم. shinnida iyo duqsigu waa laba noole oo ka mid ah xasharaadka duula. waa laba noole oo aad u kala gedisan xagga nadaafadda, xagga shaqada, xagga ahdaafta iyo waliba dhinacyada dhibka iyo dheefta ay noolaha kale u leeyihiin. labadan xasharaadna waxa lagu sheegay quraanka, mid ahaan suurad ayaaba lagu magac daray suuratun naxli, halka midka kalena shaqadiisa iyo abuurkiisa wax ka mid ah qaab tusaale lagu soo qaatay suuradda kale ee xaj. soo kale shinnidu waa xasharaad manaafacaad laga faa'iido. waxay soo saartaa dareere aad u macaan oo malab liidha. malabkaasina waa cunno marna waa daawo, waana wax isticmaalkiisa lagu raaxaysto oo nolosha bilaa. shinnidu waxa ay kala xulataa faraawilka uduga leh noocba nooca uu ka tayada roon yahay kana waxtar badan yahay dhinaca daawada iyo dhinaca dhadhanka labadaba. hawshaas waxa ay gelisaa dadaal aad u ballaaran, iyada oo mararka qaarkood u socdaasho masaafo aad uga durugsan deegalka ay ka shaqaynayso ee ay wax ku samaynayso. gaadh ayaa jooga albaabka laga galayo goobta malabka lagu samaynayo. gaadhkaas waxa uu hubinayaa shinni kasta oo soo gelaysa fayaqabka waxa ay sido, iyada oo mid kasta oo aan ku sugnayn heerkii loogu talagalay u diiday inay soo gasho goobta malabka lagu samaynayo. tusaale ahaan, shinnida meel wasakhaysan soo marta ama waxa ay sidaa wasakhaysan yahay, waxa laga celinayaa albaabka, waxaana la marinayaa abaal ciqaabeed oo adag. hadday shinnidu caan ku tahay midhamidhaysiga dheefta iyo kala xulashada wanaagga, iyada oo geedba geedka ka wanaagsan yahay doorata si ay u soo saarto waxa ugu wanaagsan ee aadanuhu intifaacsan karo. haddaba duqsigu isagu waxa dhaqan u ah fadhiga boogaha buka iyo baadhashada qashinka iyo qudhunka, isaga oo kala doorta boogaha iyo meelaha buka ee noolaha ama maytida kale si uu u faafiyo dhibta ugu badan ee noolaha waxyeelada uu ku gaadhsiin karo. labadaas xasharaad mid ka mid ah wax soo saarkiisa waa lagu farxaa oo lagu indhadoogsaa laguna intifaacaa, halka kala shaqadiisa la dhibsado lagana diiqadoodo, dareenka qofka iyo deganaanshihiisana uu dhibayo marka uu arko. waxaaba la yaabaa in labada xasharaad aad ay isugu xajmi dhow yihiin, dhinaca muuqaalkana marmarka qaarkood in duqsigu dusha marka laga eego ka qurxoon yahay shinnida ayaa dhici karta. waxaan uga dan leeyahay sida ay labada xasharaad u kala duwan yihiin ayaa dadka alla abuurayna u kala duwan yihiin. waxaa jira kuwa wanaagga fara, albaabka sharka xidha, samahana qaybiya, khayrkana faafiya, xumahana reeba, walaalaynta dadka iyo wadajirkoodana ka shaqeeya, ummadda diinteeda iyo dadnimadeedana u waardiya, wakhtigooda, hantidooda iyo dadnimadoodaba u hura sidii ay bulshadooda u guulaysanayd aakhiriya adduunba. dhinaca kale wax jira kuwayow sida xasharaadka duqsiga dhaqan la wadaaga, waa kuwa xumaha midhmidhaysta, boogaha bulshada ay isleeyihiin way bukaan turturqa, waa kuwa diinta islaamka habeen iyo maalin in ay sun ku afuufaan u taagan, waa kuwa xumaanta u soo bidhaanto, samaha maqalkiisa dhaafa falidiisa daaye, waxay abuuraan naxliga, waxay kala geeyaan walaaltinimada, waxay faafiyaan cuqdada, waxay curiyaan jirada, waxay cariyaan cadhada, waxay carbiyaan cunfiga, culumta ma xeeriyaan, waxay canjilaan caqliga, haddana kuma camal falaan. haddaynu si qoto dheer u eegnana, astaamahaas oo dhammi waxa ay maanta ku badan yihiin bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. haddaba daawadow, miyaanu kula qurxoonay in aynu dhaqanka shinnida ee dheef gudbinta ku suntan ka doorano dhaqanka duqsiga ee xabaalqodka ah, xarwarwaalkana la dhaqanka ah? waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.